السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta mawduuceena waxaan isku barbar dhigaynaa faa'iidooyinka laga helo shaaha iyo kafeega, innaga oo ka soo qaadanayna 6 qodob oo muhiim ah. Qodobada qaar way ka siman yihiin, qaarka kalena ay ku kala duwan yihiin. Qodobka koobaad, shaahu waxa uu u fiican yahay difaaca jirka, sidoo kale kafeeguna waxa uu ka hortagaa xanuunada qaar sida macaanta iyo kansarka. Qodobka labaad, shaaha iyo kafeega labaduba waxa ay jirka ka caawiyaan in uu dhimo miisaanka badan. Qodobka saddexaad, kafeegu waxa uu kordhiyaa awoodda iyo firfircoonida jirka, halka shaahu uu isna ka hortago suuska ku dhaca ilkaha. Qodobka afraad, shaahu waxa uu u fiican yahay dheefshiidka, halka kafeegu isna uu ka hortago niyad jabka iyo walwalka. Qodobka shanaad, shaahu waxa uu door muhiim ah ka qaataa nasashada iyo hurdada jirka, halka kafeegu isna uu door muhiim ah ka qaato xasuusta iyo in ay maskaxdu u shaqeyso si fiican. Qodobka lixaad, shaaha iyo kafeega labaduba waxa ay u fiican yihiin wadnaha. Intaas ayuu muuqaalkeenu ku egyahay. Ha iloobin in aad nagu soo biirto haddaanad weli naga mid noqon. Intaynu muuqaalka xiga ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa maca salaama.